waa munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday baratay qaar ka mid a xirfadaha aasaaska oo ah shaqo abuurka bulshada gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Xafladan qalin jebinta oo si heersare loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalin jebinayeen 125 arday oo xirfadaha kala duwan sida caafimaadka, kombiyuutarka, saxaafadda, cilaansaarka, harqaanka iyo cunto karinta iyo xirfado kale oo muhiim u ah daayarta Soomaaliyeed ka bartay hay'adda waxbarashada Soweto oo magac ahaan loo soo gaabiyo Somali Youth Education and Training Organization ayaa waxaa lagu qabtay Hotel Barkulan ee magaalada Muqdisho. Madasha xafladda waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee hay'adda Soweto, macallimiin, waalidiin iyo qaar ka mid ah bahda waxbarashada. Ugu horeyn waxaa xafladda hadallo kooban ku daahfuray gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Soweto, Maxamed Cali Axmed. Bismillahir Rahmanir Rahiim. أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وحن السلام يا أرضيدا مرت الشرفة معلمين تا يا دمان هالوذينا ده هي أرض صويته. وحن إذن لي هاي وحن إذكوا السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن كناد إن لي هاي سلام سره سودوين وعن قلبي إدين نقول نياد إدين سن أيان إدكوا سلام يا أنت كدب دلني يردان أستيه أدان وحي قان سدين إن أي أرضي الصوماليات أو إذل أي سوى الجرأة أي وحو برتان أو إسلسمان متكن لعج هستو إنه وحبرتو متكن لعج هيسن إنه وحبرتو مركا maadaama eesaas ay tahay marka maxaa loo baahan yahay ardayda maxaa looga baahan yahay dhammaan dhalinyarada kale ee aan wili ka faa'iideysan maxaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay inay sida ay tahay ay uga faa'iideystaan maanta haddii aad xirfad barato oo xirfad aad baratid waxaad ka duwan tahay qofka caadiyan wax bartay oo caadi waa ka duwan tahay waxaad noqonaysaa qof qaaliya oo yacni markaasi waxbarashada oo bartay ku anfaco nolol maalmeedkiisana ku raadsan kara. Xogayaha guud ee hay'adda waxbarashada Soweto, Ismaaciil Cabdi Cali, ayaa isaguna ka warbixiyay hay'adda Soweto iyo waxqabadkeeda. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alxamdulillahi Rabbil Aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah ma ba'd. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ama aan bogaadiyo dhammaan ardaydii ka aflaxday ama ka qalin bedelatay hay'adda dhalinyarada Soomaaliyeed. kuwaas oo dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiyay si ay uga miro dhali lahaayeen dadaalkooda. Waxaan markaa rabaa inaan u mahadceliyo macallimiintii, maamulkii dhammaan guud ahaan hay'adda Soweto oo ku dadaalay inay ardaydaas meel sare gaarsiiyaan. Soweto waxaa la aasaasay 27 bishii February 2019 in ka badan waxaa dufcadii labaad ka qalin jebinayso tii saddexaadna ay soo dhowdahay. waxaan rabnaa Soweto inaan wax yar ugu sheego bulshada Soomaaliyeed waxay qabato waxbarasho kaliya ah waxay kala qabataa seminaaro waxay gelino dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay ugu deeqayso taas oo bulshada ay bogaadiyeen waxayna ka shaqeysaa in ka badan 7 xarumood oo ku yaala gobolka Banaadir kuwaas oo si bilaash ah ay ugu filaan adeega ay bixiso hay'adda Soweto. Shucayb Maxamuud Cali oo ah madaxa waxbarashada hay'adda Soweto oo asna munaasabada ka hadlay ayaa yiri sida awgeed marka waxaan ku dhiirigelinayaa ardada inay halkaas ka sii wadaan xirfadda inay hore u sii socdaan inay xirfadaha xooga saaraan adduunka isbedel ka jira sidaas oo kale Soomaaliya isbedel ka jira xilli hore waxa jirtay xilli maadada markuu dugsiga hoose ka baxay ardayda dugsiga dhexe uu soo gudbo shahaadada dugsiga dhexe ardayda dooto inuu qof u sareeyo ahay waa laga soo gudbay haddana waxa ay maatay in dugsiga sare shahaadadiisa ay noqoto mid koowaad haddana waa laga soo gudbay midii oo diblomadii ay noqotay iyadana number 1 waa laga soo gudbay maanta waxay joogtaa in master iyo badge iyo PhD lagu tartamo haddana maanta isbedel jiro challenge jiro wixii oo dhan waa la wada bartay waxaana lagu mahayo sida awgeed marka maanta targetka ugu weyn oo la socda waxa waaye in qofku xirfado badan yeesho 2 xirfadood 3 xirfadood inuu yeesho ka bacdina xirfadaas oo mid kamid ah oo maanta nasiib u yeesho inuu helo laakiin haddii hal xirfad barato halkii xirfad waxa waaye in waxa la yaabaa inaad nasiib u yeelo weyso inaad wax ku hesho sida awgeed marka xirfadaha ayaan dhiirigelinaynaa xirfadaha la barto yaanan lagu koobsan inta yartaa oo hay'adda ay bixisay xirfadaha kale la sii wado hay'adda Soweto lala shaqeeyo
ardayda qalin jibitay waxaan ka rajeynayaa inay hay-adda ay la jiraan ay la shaqeeyaan oo wixii la soo baray sida firiiga lagu soo baray inay dadka ayagana sii baraan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. gabagabadii munaasabadda ayaa qaar ka mid ah ardayda waxaa goobta xafladda ay ku soo bandhigeen suugaan kala duwan iyo dhoolatos la xiriira soo bandhigidda xirfadihii ay soo barteen ardaydan oo ah dufcaddii labaad ee ka aflaxday hay-adda waxbarashada Sooyeet ee magaalada Muqdisho. ugu dambeyn markii ay xafladdu soo idlaatay ayaa hadiyad bixin iyo shahaado guddoonsiin kadib waxaan dareenkooda farxadeed wax ka weydiiyey qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay, waxayna ii sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin xirfadaha ay soo barteen islamarkaana ay rajeynayaan inay noloshooda wax badan ka bedeli doonto. Axmed Maxamed Faarax, muuqaalbaahiyaha Ras Media, magaalada Muqdisho.